marka haddan intaan dhaqaaqin gaariga is controlaynaa waraaqaha iyo waxa dhan kadib insha Allah safarkeena aan sii wadanaynaa. safarkeena meeshaan ayuu noogu bilowday marka hadda insha Allah waxaan ka dhaqaaqnay magaalada Malaga 2 saac iyo bar ilaa 3 saac waxaan gaari doonaa magaalada Sevilla. qofka isweydiinaya dhahayo hadda waxaa joogtiin Malaga, maxaa Malaga safarkeena ugu bilaawaysiin oo Sevilla u aadaysiin? intaas oo dhan insha Allah waa idin sheegi doonaa. Malaga waa u soo laabanaynaa, sidoo kale dhowr maalmood ayaan joogaynaa, laakiin safarkeena ama qorshaheena wuxuu yahay in uu ka bilowdo safarkeena Sevilla kadib magaalo kale aan aadno, laakiin waxaas insha Allah videoga ayaa ka arki doontaa. إلى سعو قيس عاد مقالدي لا قيس عاد ميدي مرسينا باز مريسينوس لا من كوي كده إيش كوريكس أبو مقالدي اختفت هذا المعلم، هذا المعلم الجديد هذا اللي سوى الألماني. هذا هو المعلم اللي سوى تباكس. واخيرا وإيماني gurigeena aan kareysana magaalada Sevilla. marka daashka jikada qolka sidaan ugu aragnay sawirada waa okay, waa top alxamdulillah. in yaraan guriga ku neefsanayno insha Allah wax kadib magaalada ayaan u sii gudbaynaa. sheekadu waa isbedesho, waxay noqotay maalinta ugu horeysa ragga qadaha ku tuuraan. habeenkeena ugu horeysa magaalada Sevilla, marka aan aragno wax arki karno. jawigooda waa naar. subax wanaagsan asxaabta meel waa joogtiin. maanta waa maalinteena labaad magaalada Sevilla, marka haddan insha Allah quraac ayaan doonina kadib magaalada ayaan hor sii galaynaa. hadda waxaan joogaa kaniisadda oo ugu weyn adduunka marka laga hadlaayo Gothic style ama dhismaha Gothic. aniga caadi ahaan si fiican u maqaan waxaas waxay tahay, laakiin saaxiibkayga Berilla aad uga fiican dhinaca taariikhda iyo waxaan laga hadlay. marka waxaan rabaa inuu information yar oo nooga sheego kaniisaddan maxay tahay iyo dhismahan maxaa laga wadaa. kaniisaddan waxaa la dhisay muxuu ahaa markay ahayd qarniga 14aad. waxaa laga dhisay muxuu ahaa meeshan marka hore waxay ahayd masaajid ay ahayd. masaajidka marka muslimiinta markii laga buriyo muxuu ka tageen muxuu dagaaladii kadib masaajidka waa laga tagay muxuu waa la dumiyay, dhinacyo way ka dumeen, wixii ka soo haray dhagxaantiisa lagu dhisay. waxaa laga dhisay kaniisadaha muxuu Yurub ugu weyn ee caalamka oo muxuu Gothic muxuu style loogu dhisay. secret muxuu bahal waxaa jirta qabriga waxaa ku yaala maxaa lahayd Christopher Columbus ninkii muxuu bahalka America oo beeda sheekay ninkii America muxuu dhahay muxuu inuu soo helay Yurubian ka dhacay. intaan dhana u jeedin waa kaniisadii. ma maqlaysin codka? halkan waxaa ka yeeri jiray aadaanka oo muslimiinta looga wacayo salaada. haddana waxaan ka yeerayo jaraskii oo kaniisadda. marka subxaan Allah waqtigu isbedelay. hadda waxaan joognaa Plaza de España. meeshaan ama sartaan sidaan u weyn u jeedin maal xadiiqooyinkeeda waxeeda dhan
waxaa loo dhisay kili sida la sheegaya ama sidaa akhriyey in lagu soo bandhigo marka oo isbaanku gumaysan jiray Latin America wuxuu ka soo qaado qalabka ka soo qaado iyo wuxuu ka soo qaado in halkan dadka looga soo bandhigo iyo sidoo kale qofka yaqaano Lawrence of Arab halkaana qayb badan looga dhigay filim kale sidoo kale maxaa la adiga The Dictator asigana sidoo kale halkaana qayb badan looga dhigay marka Star Wars sidoo kale halkaan lagu dhigay meekal ma jiro wax kala taqaan xasuusid waxyaalo badan adiga ama filmaan badan caan ah meeshaana lagu dhigay filmaan hindi sidoo kale waa aragtayna jecel oo sartaan muuqanaysa ama gadaashada ka muuqanayso marka meeshaan waa meel aad caan u ah laakiin sawir fiican aan arkay oo idin sharxayo safarkeena xagee ku bilowday xagee ku imaana marka cadahan diyaaradeen waxay ku soo degtay Malaga marka anaga Malaga ma joogin gaareen ka qaadanay toos waxaan u tagnay Sevilla hadda waa meeshaan joogno oo video aan ka duubayo Sevilla kadib waxaan ku soo laabanay ama waxaan toos uga aadaynaa meeshaan oo la wasac loo soconayo adiga Cordoba ama Gordoba markaan soo dhamaano waxaan ku soo laabanaa Sevilla hadda toos waxaan u imaanaynaa Malaga aan ka bixinaa waxaan aadaynaa Marbella kadib waxaan sii aadaynaa Granada markaan Granada ka dhamaano waxaan imaanaynaa Malaga kadib waxaan u laabanaynaa waddankeeni ninkaana u jeedin waa nin lagu inkaaray wax la dhahayo qorax dhicid iyo qorax soo bixid meel walbaan u safarno meel walbaan aadno wuxuu nagu daahiyaa subaxdii waxaa la soo kacaya intay qorax soo bixin meel in la istaago waxaa la dhahay waxaan rabaa inaan sawiro qorax dhicayso waxaan rabaa inaan sawiro qorax soo bixayso arkaad kaamiradan gacan lagu heeyaa telefoon gacan lagu heeyaa maxaa la gaadayaa qoraxda dhicaysa qoraxda soo bixaysa hadda waxaa inta u joogna ilaa qoraxda ka dhacda dalaadiisa wuxuu rabaa inuu sawiro qoraxda dhicaysa meesha imaanay qoraxda oo dhaxda taagan waxaa lagu gaaray haween 3 sac iyo 50 minute marka waxaan isdhahaynaa in yara meesha fiirnaysa waan ka tagaysa laakiin meesha say u weyn tahay iyo say u qurxan tahay markaa aragtid xadiiqadeeda dhismaha siduu yahay waqti la ku dhamaana maahan meesha kama daalaysa marka waxaan dhaha lahaa Plaza de España laayaan ku siiyey subax wanaagsan asxaabta iyo familiga meelba aad joogtaan maanta waa maalin saddexaad aan joogno منطقة la dhahayo Sevilla oo ay tahay caadi ahaan caasimadda dhulka Andalusia ama Ardh al-Andalus oo furay Tariq ibn Ziyad ama Tariq ibn Ziyad ee muslimiin badan ay meesha fureen marka hadda waxaan joogaa cadaha xadiiqo oo raacsan meel la dhahayo Barrio Santa Cruz meeshaan hadda la sheegayo waxaan u imaaday kali inaan arko siday tahay lana waxa la dhahay xilliga muslimiinta meeshaan waxay ahaan jirtay meel ay leedahay kali yahuuda marka Sevilla markaa joogtid maanta oo saxay tahay oo maalba aan socday waxaan dareemaysaa Sevilla buuqeeda waa ziyaado saxmadeeda waa ziyaado looqaheeda way yarhiin saaxiibkayga Berlin wuxuu ii sheegay inay tahay maaqan qoraxda daraadeeda ee u dhisaamiyaa waxaas u dhahay adiga waa isku dhow yihiin hadda aragtan xataa magaalada dhexdeeda waxaa suran maro ama bahal qoraxda celinaya ayaa suran marka asaan weydiinayna sababaha oo asaas loogu dhisay asaa iga sheekay taariikhdeeda laakiin hadda si kale meesha u fiirisay mantiqadan waxay ugu duwan tahay Sevilla dhexdeeda horta gaari waa ka mamnuuc gaari soo galaya ma lahan baabuur soo galaya ma lahan waa meel aad u degan caadi ahaan dadka socda kaliya arkaysa sidoo kale waxaa raacsan xadiiqadan u lidaa ama meeshan oo beerta ah aad u weyn waa la fadhiistaa haddaa fiiristo waxaa arkaysaa xilliyada oo ama waxa TV-ga laga daawado filmaanta laga daawado waxaa xasuusanaysaa adiga Soomaali waa taqaan guryaha wax laga dhiso kan magaciisa waxaa la dhahaa 2000 years kan inaan dhulkan u lahaan jiray muslimiin waxaa dareemaysaa markaa meel booqasho u imaatid mujdan محمد الله bahalka yahuuda ah bahalka masiixa ah marka waa xaafad wax walbo isku keentay midda kale oo Sevilla igu qancisay waa gurigaan degay sadquxiis wuxuu leeyahay meel sidaan ah oo la fadhiisanayo marka da magaalada ka soo daashto oo kale halka iska imaao cashada soo qaado ama waxa soo qaado halka iska fadhiiso ama hadduu ku qancin waayo duhuradii oo kale oo magaalada ina aad jecel maadaama magaaladan ay kulushahay halkan ina ku qabaystid meeshaan dhex fadhiisan kartaa biyo oo karkaraayo ama badbada ayaa daaranaysaa waa iska dhex fadhiisanaysaa jawi degan
يحسبون عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا النار التي تورون. kusoo dhawaada qurtuba caasimad ardal andalus markay ahayd xiliga muslimiinta hore waxaan idinku sheegay inay tahay Sevilla caasimad ard al andalus ama andalusia waa sax laakiin waa xiliga muslimiinta ay hayeen andalus meesha hadda la joogo waxa ay qurtuba ay ahaan jirtay caasimada oo muslimiinta ama caasimada ard al andalus marka sidoo kale hadaa laga hadlaayo قرطبة حتى قويت الوقا لها بأربع فاقت الأمصار قرطبة منهن قنطرة الوادي وجامعها ومسايد أوين حلقيسة وهذا الذي يسوق الكنيسة أدوين مدك له لها قنطرة وأريقا جسر أما بوندو وأيضا إن شاء الله نسندونهم منهن قنطرة الوادي وجامعها هاتان اثنتان كوان ولو والزهراء صدق وأريقا تولير أو كل قنطرة tuuladana magaciisi waxa dhisay sidoo kale dadka muslimiinta andalus dhiseen waxay u dhiseen sida ay u dhisantahay dimashq هاتان اثنتان والزهراء ثالثة والعلم أعظم شيء وهو رابعها marka waa gabaygan lagu qaaday in sha Allah misaajidkan aadana masan safiirnayna iyo sidoo kale jisrigan sheegayno iyo inta meel aan ku wareegi karno أنا بس خلاص. هذا كمان مسقط هذا. Que unos sean buenos y otros malos, y concedió a la razón la posibilidad de apreciar claramente y distinguir entre ambos. marka sidoo kale marka taariikhda Qurtuba la akhrinayo waxa ku qoran in oo marka qofka Qurtuba uu soo socdo intaasoo kiiloomitir ka hor uu aftiinka magaalada ka soo baxayo uu ku aftiinsan jiray sababtoo ah misaayidaheeda aad u farbatnaa waxa lagu dhahaa qof haduu gurigiisa ka baxo waxa akartay dhowr misaayid uu gali karo haddana subxaanallah hal misaayida maanta ku tukanay salaada jumca waxa iyaga wuxuu ahaa marka salaada la adimayay raadigii la daaray samaacad ku xiran markaas ayaa aadaanka dhageysanayay imaamku uu kacay khudbada wuxuu noo jeediyay kadib uu aqimay waa weydiiyay waxaan dhahay ma yaa adamay wax sameeyay waxa la aadaanka waa adiga wax duuban oo la daarayo fa subhanallah يا سبحان الله في سوية مساعدك والبركة لقى الصوغ قلق وصدام وين يهي ويناشي سفيري حديث وميخ قرون كبت تكيت ولو قلها وطوان يورو قف كيبو هاكن إلا قضالو في جرا انت عندن waa saaxada oo misaayidka ahayd ayagana had intaan ay xirteen ay ku tukdaan mar walba imaatid meelaha adiga oo siyaaxada imaado ama meelaha mar hore la dhisay waxa dhisay dadka xilligaas dhiseen alaabta hadda taalan hore uma oolin marka xaggay ka keeneen waxaanay meesha ku dhiseen iyo siday ku dhiseen subxaanallah masaajidkoo dhan waa kana afwan kaniisada ama masaajidka hataa ayaga waxay ku qoraan masaajid oo katedraal marka adiga masaajid hataa u yaqaanaan laakiin anaga asal wuxuu yahay masaajid inuu ayaga waxay rabaan ka dhigaan marka hadda sidoo kale waxa ka jiro ama waxa ka haray masaajidka la sheegay rasmiga waa xadiiqadan hadda banaanka ah marka nuskeedu uu dumaa la dhahay tanaa ka hartay waxa meeshan ku qoran ma sheegi karo waxay tahay laakiin
waxaan u badanaa inay tahay dhagaxmo oo hore u jireen laga soo qaaday meelaha oo ku qoran farta carabiga lillaah axmed lillaah alam muswad mubaarak shaacirka gabayga qaaday oo dhahay qurtub waxay ku dhaaftay maxaa la dhahday magaalooyin kale horumarsan masaajidkeeda been ma sheegin diiqada oo la dhahayo oo ka hartay masaajidkii hore oo ay dhiseen muslimiinta waa xadiiqadan marka waxaa lahay adiga cadahan badankeeda way duntay marka adiga inta hartayna waa intaan sorry baba جسري هذه الشيء جاي الله قنطرة الوادي وجامعها وصارقنا جامعة سبحان الله مساعد كصاص وين ميدا كلنا كنا جسري هذا أو عن أي كتاهاي قرطبة مقالة قرطبة أما كردوبة أما السوق اللويقاني جنة الله في الأرض عاصمة الإسلام مش لويقان جري marka waxaan dhahaynaa mac salaama khayr badan aan ku waraafnay batarida ay dhammaan rabto sidoo kale marka inta meelaantay karna waa tagnay qurtuba waa ka dhamaanay batroolka uu naga dhamaaday waqtigana uu dhamaaday marka waa inoo Sevilla magaaladeeda hotelkeeda waxeeda dhan waa ka dhamaanay marka haddana waa inoo Malaga جبتني أماكن صحراء 45 جراد Gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They run and earned it, and we popped off when your ex, he deserved it. I thought you would've won. Hola, hola. Hola, hola, Muna, Amadeus, hola. Acabei de desencantar, né? Só do baixo. الحمد لله Malaga ilaahay salaam uu keenay marka hadda waxaan sameeynaa kali gaarigan celinaynaa safarkii Sevilla iyo Qurtuba uu soo dhamaaday inta dhiman hadda insha Allah Malaga iyo meelaha kale la aadi doono waxaan idinku soo celinaa xaafadayna oo aan ka degnay marka guriga toos uga waxa arkaysaa daarad yar oo lagu cuno khadada lagu cunaay iyo soo kale TV-ga meel lagu raaxaysanayo TV la fadhiisto miraayadeeda waxay way leedahay iyo soo kale jika qalabkeeda dhan wadato cuntada wax lagu karnaayo alaabta lagu dhaqaayo dharka lagu dhaqaayo lagu kuleysanayo talaajir cabitaan iyo talaajir kale hoos oo
wax haddaa ku qoobsanaysid ama wax ku samaysanaysid. Qolka koowaad oo qol jiif ah iyo sidoo kale musqushiisa oo qalabaysan. Qol jiif labaad sidoo kale musqushiisa marka caadi ahaan haddaa 2 qof aad tihiin ama haddaa 4 qof aad tihiin waa raaxaysanaysiin. qof walba suuligiisa uu leeyahay iyo sidoo kale qolkiisa. guriga Malaga afwan guriga Sevilla wuu fiicnaa laakiin kani wuxuu ugu duwan yahay labada suuli meeshuu ku yaalo iyo weynaashada. sheefkeena cuntoonu karnaa Mr. Abdulrahman Hosbor. قد أتينا البحر. kusoo dhawaada qada kulul. akana ninka idin dhahay wuxuu jecel yahay waa qorax dhicid qorax soo bixid qorax dhicid qorax soo bixid. laakiin jawigan wuu istaahilaa in caawo ilaa beri la sawiro. kaamiradu wax ka arkaysino wax kale markaa live u joogtidna waa shay kale oo adiga la wasfin karin. salaad u baanay masjid Malaga. أربعة شهداء أنهم شاهدوا العملية مباشرة، وهذا تقريبا يستحيل يقع هذا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى من ستره بعباده أعمل لهم الضوابط هذه. maalintan ugu dambayso magaalada Malaga halkaan ayaan ku qaadanaynaa daawasho wacan. meeshaan wareegsan ujeedin oo garoonka waa waxay caan ku tahay Isbaaniya oo ah musaaracatu thiiraan ama dagaalka oo dibiyada. waa aragtana jecel ninka adiga oo marada cas heeyo dibiga kale xanaaya ama dababursanaa wax sameynaya. waa meeshaan Plaza de Toros. dekadooda meeshaan ku dawaalanayni hoteelkan degnayni waa adiga meelahan buurta waa fuulnay. inta meelaan aadi karna waa aadnay waa baashaalnay. marka Malaga, Sevilla, Qurtuba ama Ardal Andalus
waa ku baashaalnay familigayga iyo familiga saaxiibkayga berille marka waxaan idin dhaalahaa meel walba aad joogtiin khayr badanaa idin dhaafay waxaan is arkaynaa video cusub oo walaalkiina axmed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Overlaat öppnen till Bengtsfors. Jag vill på det sista gängs generalbanken. Vielen Ladies and gentlemen, it's my introduction to the past and the last kind of your seat has switched off. For your own safety, please fasten your seatbelt.